waxaa jira wadada 200 oo si dib badan ka taagan halka waxaa ku dhintay dad badan oo door reer Soomaaliland ee wadadaasi soo aragnay mal calaamado ee waxa taa wasiir gaadiidka iyo ejeedka Soomaaliland ee wasiir wadada maxaa kaga meelay waxa boqolkiiba 80 qof ka keena gaadiidka golaha baarlamaanka say gudoomiye sheegay waxa noogu yeedheen xeerka wada marista gaadiidka inaanu oo muddo bay halkan yaalay oo hawsha socotay inaanu si fiican uga maartay u gorfayno iyadoo xeerkan muhiim u yahay qaranka inuu sidii uu dadka loogu dhaqi lahaa inuu ka gudbo golaha hadii Ilaahay ka dhigo marka xeerkaas aanu falanqeyntiisii maanta waqti badan ku qaadanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddiga gacanta ku haysa insha Allah baarlamaankana inuu goloweynaana u gudbo degdegna insha Allah xeerkaas loo ansixiyo si aad la socotaan shilalka wadankeena ka dhaco aad u badan yihiin waxaana sababa gaari baa sababa iyo qofkii waday ayaa sababa marka shilalka faraha badan sanad walba lagu oranayo 100 qof baa ku dhintay ayaynu doonaynaa inaanu meesha ka saarno hadii Ilaahay ka dhigo wixii Ilaahay qadaray waa meesheeda laakiin waxay ku imanaya farsamo inaynu qabanno oo farsamada hagaajino inagu maadaama Ilaahay mas'uuliyad inooga dhigay oo dusha inaga saaray inaynu gaarigii iyo ninkii wadayay iyo wadadii inaynu kantaroolo xeer inaynu ku kantaroolo inaan qof ku marin calaamadaji madaxiisa inaan ku marin qof kasta inuu wadada ku maro waana sida in marka u badanahay oo dadkeenu wadada waxay ku maraan sida uu isagu doono marka inuu sidoo xeerku doono inuu ku maraayo doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maalin walba waad arkaysan laamaha nabadgelyada wadooyinku 24 saac waa dadka 24 saacba shaqeeyay way kamid yihiin marka hay'adaha dawladda la tilmaamayo ciidamadu sidooduba way shaqeeyaan laakiin haddana qolada wadooyinku waa nimanka ugu hawsha badan maalin walba gaari bay eriyanayaan gaari bay xukumayaan dad bay kala saarayaan waa shaqada noocaas dadka haya xeerkii ay isticmaali lahaayeen ee u fududeyn lahaa go'aanka qaadashada u fududeyn lahaa ay doonayaan insha Allah inaan maanta ayaan halkan u nimid falanqeyntiisa su'aalaha laga weydiinay inaanu ka jawaabno maadaama xeerku aanu xeer muddo sidiisa xeer cusub maaha waa xeer jiray oo wadanku lahaa oo soo bedbedelay oo mar walbana xaaladda jirta la jaan qaadayay weey ayaa maantana aynu maraynaa maadaama gaadiidka soo batay telefoonada lagu hadlayo iyo waxa la daawanaya soo bateen qofkii gaariga waday uu shaashado gaariga ku dhaxaysto marka gaadiidka isbedelay waxyaabahaas oo dhan baynu insha Allah taala xeerku waa in xeerarka ku inoogu jiraan oo aynu cawlamada aynu la jaan qaadno casriga iyo xilliga la marayo marka aad iyo aad buu mahadsantihiin way saacadu iskaadaan su'aal ku weydiyo waxaa jira wadada 200 oo si dib badan ka taagan halka waxaa ku dhintay dad badan oo door reer Soomaaliland ee wadadaasi soo aragnay mal calaamado ee waxa taa wasiir gaadiidka iyo ejeedka Soomaaliland ee wasiir wadada maxaa kaga meelay walaal horta wadadaasi waxyaabaha horta marka hore shilalka keenaya shilalka ma wadada keenta ma gaariga keena mise qofka keena waxa boqolkiiba 80 qofka keena ruqsadihii qofku uu gaariga ku wadayo waan adkaynay oo wax badan baan ka qabanay inaan qof ruqsadii la iska qaadan liisanka inaan qofku iska qaadanin oo qofka u qalma inuu qaato wadadaas iyo wadooyinka kale shilalku ku badan yihiin shilalku waxay ku badan yihiin wadooyinkii dhamaystirnaa ee quruxda badnaa ee dhawaan gacanta faraha laga qaaday ayaa shilalka dhimashada ugu badan ay ka dhacayaan marka waxaana sababay inta badan darawaliinta xeer kama doonaa inaan wax badan ku saxno wixii wadadu keenaysana iyadana waa shaqada socota weeyaan hadii la gaabin hadii wadooyinka meelaha ay hadii goor shilal ka dhacaan wadada 200 farsamo ahaan meelaha waxa jirta shilal ka dhacaan marka taasna anaga laanta nabadgelyada wadooyinka iyo wasaaradda waa laga shaqeeyay dawladda hoosaba in laga qaado wixii ku haboon inuu ka sameeyo